guriga marka la imaade kashka wuxuu ogaa istaagtaag badan in ay jirto meeshan habina la raadinayo oo macnaha xarash lagu raadinayo kashka kama uusan soo degan gaarigiisa wuxuuna sugaayay habi inta gurigeeda ay ka galayso abeenadii habi amartay ganjeelka guriga u soo dhawda waxaa soo orday gabdho badan ayaa soo yaacay gabadha ugu firfircoonada hore kugu sheegay ee wajiga u xirnaa ayaana ugu soo horeysay habi ayaana la soo hor istaagay habina dhulka iyo xabsatay wax dhulka yaala ay soo qaaday waxaas ayana ku turiyay si loo socdo rukub ayaa la isdahay habi waxba saas ma soo gaarin gabadha kale waxa ma soo gaarin laakiin muhiimadda fiidiyooganaga hore ayaan kugu sheegay ninka halkan kaaga muuqdo oo macnaha magaciisa la dhaho maskax la yiraahdo ninkan arkaysi waa taliye saldhiga hodan macnaha taliye ka ah ninkan arkaysi waxa uu haystaa hub sharciyeysan ee loogu talagalay in shacabka lagu badbaadiyo waxa loo dhaariyay shacabkiisa inuu macnaha u kala eexanin oo macnaha ninkaas shacabkiisa uu u sinaado badbaadadooda oo macnaha madaxa uu saarto ninka asaga aha ayaa xabada riday wuxuuna xabada ku riday macnaha laag muxuu ahaa ujeedkiisa wuxuu ahaa kashka suusan uga soo bixin gaariga laakiin kashka gaarigu waa uu ka soo baxay naftiisa ayuuna halis soo galiyay wuuna soo baxay xabadana uu u soo bareeray banaanka ayuuna soo istaagay markuu banaanka soo istaagay oo kashka la arkay inuu macnaha gabaneenina dadka ayaga aha way carareen oo macnaha gaariga inta la carareen loo gashteen ayay macnaha laag muxuu ahaayay tole gabadhii wajiga u xirnaa iyo martiluusirina ay dafeen la carareen gaariga saarteen sidii ayay ku carareen meeshaas ayada fashil weyn ayaa ka dhacay bahashan sunta ah ee indhaha la iskaga buufiyana waa bahal loogu talagalay ciidanka in uu qaato oo macnaheeda ay tahay shacabka markuu macnaha mudaharaadiyo wax markay sameynayaan hadii gacan ay tahay waxa ay san qoriyahaysanin ee xabad aan lagu rideenin baasha indhaha ayaa looga buufiyaa markuu indhaha marmartana waa laga qabtaa baasha ayadeedna asaga ayaa gabadhan u dhiibay labadan gabdhood macnaha inuu u kala eexda ninkan asaga ah macnaha adiga ma kula saxan tahay mise kula qadan tahay taliye macnaha laag muxuu ahaayo tolo loo dhaariyay shacabkiisa inuu badbaadiyo markay arkaan abni ay macnaha agtiisa ay ku dareemaan maanta cabsi iyo walwal inuu galiyo xabado inuu ku rido لو قبل هذا الصومال إنه كله بكل صحة انتهى وإذن سلام يا peace and love فيديو كان لاك لكن قبل هبي أهد فمل كده دان الباب كسلقة توريين هذا دا سلقة بوقتين حتى وكسو أركرتين ماشي كبوحان ويقرب تاجيين عنتا الله كان نرى الله كان ان هبين وعلى ليه قولك أي سي تلصدة وكسو كنت ما دام أحسن أهن دمبيلي halka qoftii luusinaheed ee dhahday sida wax igu soo gaartay aniga way aan meeshan u fadhiya meesha banaanka laag dadka ay fadhiistaan xalay saldhig gudaha ku xirnaada la yiri qolalka gabadhii kaleete oo ayadana dagaalka kula jirtay magaceeda waxa la gabadhan waaye nashaadnalka ah lagu magacaabaa waa gabadhii in shareerka soo xiratay ee wajiga soo xiratay ee hab ee luusina la socotay ee hab rabtay inay si xun u gasho oo waliba luusina u gediso waa naagtii rabtay inay la garaacdo gabadhan ayadan way xiran tahay qolka jeelka gadaal ku xiran tahay leeyahay sida xog igu soo gaarayso waliba waxa kale xog igu soo gaaray habi reerkeeda in loo imaaday oo la dhahay xaal marin qaata ee dheen annaga maya gabadheena waxa la isku day dil miya la isku dayay maadaama isku day dil isku dayay annaga gabadheena waxaan diyaar u nahay in maxkamad aan la korno dadkii isku dayeen waxaal marin la yiraahdo wax dhaxdhaxaad yiraahdo meeshan absolutely ma qaadaneenabo halka obi ee qoratay luusina shariif obiga ee qoratay ayadana saake la leeyahay obiga soo gaaray warbixintii soo gaartay saldhigiga soo gaaray ee qoratay in ay dhibaateeyeen laba qofood ayadana kashka iyo habi dhibaatada ay ku dhibaateeyeen oo yahay muuqaal anshaxumo inay gabadha ka faafiyeen ee u dhiibeen gabadha lagu magacaabo Huda Amoon muuqaalkaas waxay ka dhiganaysaa ayadana dacwad waxa kale xog igu soo gaaray ninkii taliishuuta ahaa oo ku maqnaa Nairobi inuu dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho si kiiskan ay taliishuuta loo horgeeyo Allahu